Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Cabdicasiis. Maanta waxaynu ka hadli doonaa 3 qodob oo muhiim ah. Haddaba 3daasi qodob maxay yihiin? Qodobka koowaad, saameynta ay leedahay daraasadda. Qodobka labaad, yaa loo aqoonsanaa shaqo la'aan. Qodobka saddexaad, sababaha keena shaqo la'aanta dhalinta kasoo qalin jabisay jaamacadaha. Haddaba dhegeysi wacan. Qodobka koowaad, saameynta ay leedahay daraasadda. Natiijada ka soo baxda daraasadda waxaa la filaa in uu xal u noqdo shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhalinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa kasoo qalin jabiyay jaamacadaha. Waxaa kaloo daraasadda ay faa'iido u leedahay dadka daneynaya in ay sameeyaan amaba ka qoraan wax ku saabsan shaqo la'aanta. Yaa loo aqoonsanaa. Qodobka labaad, yaa loo aqoonsanaa shaqo la'aanta. Hay-adda shaqaalaha adduunka ee International Labour Organization waxay u qaybisay shaqo la'aanta 3 qaybood oo kala ah: tan koowaad, qof aan shaqayn oo diyaar u ah in uu shaqeeyo, haddana raadinaya shaqo 4 isbuuc la soo dhaafay, waxaana loo aqoonsan mid ka mid ah shaqo la'aanta. Midda labaad, waa qof shaqo raba oo raadiya laakiin ka niyad jabay raadinta shaqada, waxaana loo aqoonsan in uu ka mid yahay shaqo la'aanta. Tan saddexaad, qof aan shaqayn oo aan wax baran sida iskuul, haddana raadinaya shaqo, asagana waxaa loo aqoonsan shaqo la'aan. Hadalkaasina waxay ku dhawaaqday International Labour Organization sanadu markay ahayd 2010. Haddaba qodobka saddexaad, sababaha keena shaqo la'aanta. Dhalinta kasoo qalin jabisay jaamacadaha way badan yihiin sababaha keena shaqo la'aanta, balse waxaan ka soo qaadan doonaa 3 sabab oo sal u ah shaqo la'aanta. Midda koowaad, caqabad ka jirta dowladda. Midda labaad, caqabad ka jirta dhinaca xarumaha gaarka loo leeyahay. Midda saddexaad, caqabadaha ka jira dhinaca hal abuurka shaqada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.